waayahay bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiy bacda arday soo dhawaada insha allah maanta waxaan ka hadlaynaa hadduu al yidhaahdo sida loo iibsado domain name iyo hosting. dabcan markaan aan ku jirno serieska ama taxanaha wordpresska aan kusoo baranaynay dabcan waxaan soo aragnay sida local host wordpress website loogu sameeyo, sida oo maxay ahayd free hosting iyo free domain name, sida laisku diiwaangeliyo maxay ahayd wordpress loogu shubto, sida website loo saaro. waxyaabahaas oo dhan waan soo aragnay. marka insha allah haddii aadan cashiradaas aan soo daawanin ama aad u baahantay inaad wax badan aad ka fahamtid domain name iyo hosting waxay tahay, please insha allah cashirada hore soo daabo, linkiyadooda description-kan ku qoraa hadduu al yiraahdo. marka waxaan ugu maanaynaa sida loo iibsado domain name iyo hosting. horta website-yada bixiya hosting iyo domain name aad ay u fara badan yihiin. marka waxaan ka soo qaadanaynaa insha allah 3 ka mid ah kuwooda ugu caansan aan soo qaadayna hadduu al yiraahdo, anagoo isku dayayna inaan mid walba aan dul istaagno waxa uu ku fiican yahay iyo maxay ahayd siteground.com. waxaan u maanaynaa horta website-kan ugu horeeyo waxaa la dhahaa namejib.com. namejib dabcan waa website asigana wuxuu bixiyaa service-ka domain name iyo hosting. dabcan qiimihiisana waa magacaba ka gar, waa jib, waa macnaha waa raqiis, oo runtii servicekiisana maxay ahayd waa high quality. so marka haddaan fiirino domain name-ka iyo qiimayaal.com oo kale hadda wuxuu leeyahay only keliya wuxuu ku leeyahay keliya waa $5.98 oo kale. .com domainada dabcan .com ugu raqiisan, waxaan ugu qaalisanaa filaa .net inuu ugu qaalisan yahay filaa, iyo .dev iyo way kasii qaalisan yihiin. marka .biz qiimayaashan waaye. marka waxaan tegaynaa meeshan oo kale haddaa aragtid aad domains aad dhahdid aad ku arkaysaa macnaha domain nameska uu bixiyo ama laga helo. marka haddii aad rabtid dabcan cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida loo iibsado hosting and domain name. hostingka waa kana dabcan intuu kugu sharxaa maxay ahayd hostingka. marka intaan qeybooda jiro shared hosting waxaa la dhahaa hostingyada oo maxay ahayd website-yo badan aad ku dhisi kartid aa loo yaqaanaa shared hosting, oo balaanka ugu yar ilaa iyo 3 website aad ku dhisi kartaa. midna waxa waaye unlimited waaye macnaha oo inta aad doonto website ku dhisi kartaa. marka kaas waxaa loo yaqaanaa shared hosting aa lahaa macnaha. wordpress hosting waxa waa hosting oo wordpress kale loogu talagalay oo dabcan very easy ah iyo soo kicitaankiisa. iyo reseller hosting waxa waaye tusaalahan haddaa company kale oo tahay oo maxay ahayd aad u baahantid inaad hosting aad sii iibiso, aad macmiil aad kasii gado, loo isticmaalaa saa magac uu jeedi reseller hosting. waxa waaye package-kana hal mar ka soo iibsanaysaa, package-ka markaa kasoo iibs kadib macaamiisha u qaybinaysaa, macnaha waxaa loo yaqaan reseller hosting. waa dabcan balaanka ee badana isticmaalaan shirkadahan Soomaalida, resellerkana isticmaalaan macnaha inay package balaaran ay soo iibsadaan ee kadib ay sii qaybiyaan. VPS hosting waxyaabo noocaas oo kale. marka hosting haddaan shared hosting oo kale haddaan ku dhufto waxaan arkaa marka badanaa shared hostingka ugu fiican maadaama aad website kale aad ku abuuri kartid. balaanka ugu horeeyo kale hadda fiiri stellarka meeqa waaye waa $1 iyo 58 cent waaye macnaha bishii. sanadkii wuxuu imaanaa waa kana ubay $88 iyo 44 cent sanadka meeshaas soo imaana. marka 3 website aad ku dhisi kartaa, size-kiisana waxa waaye 20 GB waaye. midkaana stellar plus-kana asagana wuxuu leeyahay hadda waxay kusoo kordhiyeen feature-kan oo ah domain name oo free ah inay bixiyaan. feature-kaas hadda kusoo kordhiyeen macnaha hase ahaatee asagana intaan waaye $2 iyo bishii, sanadka deer isku dardar $1 ay keeneen.
kan waxa waaye isigoo kala ahaan balse badana labadan ala isticmaala midkaana haddii aad rabto website fudud sida news website oo kale ama portfolio website oo kale ama e-commerce website dhigi karnaa balse kan oo kale unlimited website kan oo kale oo unlimited size kana markii online education website oo kale ama noocaas oo kale abuurinaysid ugu fiican yahay macnaha balaankan hadda yearly waa sanadlo waa hadda rabtid 2 sano ku noqotana 2 years aad dhigi kartaa macnaha marka dabcan Namejeeb waa maxay ahayd waa midka aan aniga aan isticmaalo aan dabcan markaan u baahanahay domain iyo hosting midka aan ka isticmaalo oo ka iibsado marka maxay ahayd service koodana waa high quality qiimahoodana soo u jeed waa raqiis macna hadda kan oo kale okay monthly hadii dooran yearly badana yearly la isticmaalaa in maxay ahayd yearly kale hadda dii la dhaho kan ugu hore hadda $88 uu yahay waxaan leenahay get started oo kale balaankan oo kale aan dooraneynaa okay markii aan doorano wuxuu noo soo bixinaa macnaha shaashadan oo noo soo bixinaa okay marka hadda waxaan dooranay kaliya hosting aan dooranay macnaha waxaa naga dhiman domain name aan naga dhiman okay domain name ina fahamsantiin afila domain name waxa la dhahaa magaca website kaada oo macnaha hosting waxa la dhahaa meesha feelasha website kaada ay yaaliin dabcan website kaada waxa laga yaabaa inuu ka kooban yahay maxay ahayd website kaada wuxuu ka kooban yahay sawiro wuxuu ka kooban yahay qoraal waxa laga yaabaa xitaa inuu video ka kooban yahay waxyaabahaas oo dhan meesha ay ku guran yihiin ayaa waxa loo yaqaanaa hosting soo marka asiga 20 GB hadda balaankan dabcan waa kala GB dadan yahay waa kana disk space waa 20 unlimited ka ugu fiican soo marka shared host hadda waa kana hosting kaliya wax ma ku taray macna waxaad u baahan tahay domain name ina heshida u baahan tahay okay si aad maxay ahayd loo soo booqan karo macna hadii aad hosting kaliya aad iibsato waxaad u baahan tahay domain name hosting kaas ku xirta u baahan tahay insha Allah casharada soo socdaan ku arki doonaa sida domain name iyo hosting isku xiro balse waxaan ka hadlaynaa sida loo iibsado domain name iyo hosting marka saasa u doortay kadib meesha ay ku qoran tahay new existing domain name hadii domain name adiga hore u haysatid ay tahay meeshaan existing domain name iibsanay ku dhufanay domain name kaas gelinay macnaha bas mid cusub haduu yahay si meeshaan search ku dhig su'aalahan oo kale hadii aad rabtid domain name aad ahdo kale anas walal.com oo kale hadaad ahdid domain name kaas find it hadii dabcan waraadina dabcan wuxuu ka raadinaa hawadu ka raadinaa inuu domain name kaas uu maxay ahayd uu banaan yahay in kala waraadina waa kana uu banaan yahay dhahay jagan uu sar uu banaan yahay laga wada macnaha kadib waxa leedahay maxay ahayd connect to hosting leedahay waa kana waxa leedahay hosting ku xiraa leedahay macnaha soo marka hosting kaas ku xiraysaa okay hosting ku xirayna marka wuxuu sameeynaa inuu domain name ka iyo hosting ku isku xiro okay oo sameeynaa macnaha marka lacagta dhan fiir meeqay noqotay waa $27 bare noqotay balas hadii aad karka isticmaalayso iyo Premier Bank oo kale badana waxay ay goostaan maxay wixii oo $10 wixii ka badan adii $3 miya meelahaas ay goostaan adigu $5 la iska dheh adii $27 ilaa maxay inta $33 $34 intaas kuugu filan ina domain name iyo hosting website ka Namejeeb ka iibsad kadib markaas aan u dir kadib waxa leedahay add to cart okay add to cart marka dhahdi kadib waxa ku soo baxay dabcan meeshii aad warbixintaada dheeraadka aad ku sii xaqiijin lahayd okay marka Namejeeb hadda ku jirnaa Namejeeb aniga aan macaamiil u ahay dabcan servicekeeda in badan iibsaday marka waa sababta aan si fiican ugu sharxo saas waay marka website-yadan kale sida Bluehost oo kale iyadan way bixisaa service-kaas sidoo kale side ground ayagan way bixiyaan macnaha service-kaas balse wali aan side ground ma ka iibsanin Bluehost ma ka iibsanin dad qaar oo ka iibsado amaanayn waa arkay balse ani waxaan amaani karaa waxa aan ka warqabo macnaha aan isticmaalo shayga aan ka warqabo aan isticmaalano waxa waay Namejeeb service koodana waa intaas soo markaas u doortay kadib hadda lacagta $37 noqotay hadee jiraan macnaha promo code hadee jiraan ama code qiimo dhimis hadee jiraan inta ku baasta gareynaysa macnaha
meeshaan ku baasto garanaysa kadib apply aa leedahay markaasaan u noqotay maxay ahayd saan ay u noqotay kadib waxaa leedahay confirm order leedahay macnaha confirm order markaa dhahdid wuu kusii wareejinaa macnaha oo maxay ahayd wuxuu kusii geynaa meeshii aad ka abuuran lahayd akoonkaada haddaa aad ku cusub tahay macnaha aadan akoon ku lahayn marka waa kana login geli dhawa marka haddaa akoon ku leedahid dabcan waxaa leedahay login aa leedahay haddaadan ku lahaynna waxaa leedahay create new aa leedahay marka verification method kusoo dira oo hadda login aan dhaho in dabcan inuu emailkayga uu code oo kusii diro oo kadib aan sign dhaho marka intaas aa gashid kadib xogtaada u xaqiijinaa kadib waxaa kusoo bixaysa shaashad ay ku xusan tahay meel ay ku qoran tahay name on card email ay ku qoran tahay horta kaarkaa dooranay macnaa kaarka aa rabtid waxaa leedahay inuu yahay debit card inuu saas mastercard qaabkaas oo dooranay kadib meesha name on card ay ku qoran tahay dabcan kaarkaada magaciisa ku xusay meesha kalena kaarkaada numberkiisa ku qoray kadib next intaasaa leedahay marka intaas aa dhamaysa kadib emailkaada ayay bashqad kugu soo dirayaan sidaasaa ku iibsatay macnaha domain name iyo hosting marka waxay bashqad marka kugu soo dirayaan waxa loo yaqaan cpanel kaas oo ku jiraan maxay ahayd domain name-ka iyo hosting intaas uu ka kooban yahay macnaha marka aragtid inaa website-kaada hosting garaysid ama failashiisa wax ka qabatid dabcan cpanel-kaas la tacaamulaysan marka cashirkeeni ahaa marka insha Allah sida loo iibsado domain name iyo hosting intaasaan ku keenayna insha Allah marka waxaan rajeynaynaa cashirkan wax badan aad ka faa'iideen aan waxyar aad ka fahanteen maxay ahayd sida loo iibsado domain name iyo hosting hadday waxyaabo kale iyo su'aalo kale jiraan